halkani waa magaalada Los Angeles waxay ku taalaa koonfur galbeed ee gobolka California waxayna kulaalaysaa badweynta Pacifiga waa magaalada labaad ee ugu weyn dalkani waxaana ku nool dad gaadhaya ilaa 4 milyan oo qof waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan uguna qanisan caalamka miisaaniyad sanadeedka ay dawladda hoose ee magaaladani ay ku hawl gasho waxa ay kor u dhaafaysaa 10 bilyan oo dollarka Mareykanka waa magaalo loo soo dalxiis tago waa xarunta halabuurka murtida iyo madadaalada waana hoyga Hollywood muuqaaladaasi iyo tilmaamaha aynu bixinay ayaa ah kuwa markaaba dadka maankooda iyo maskaxdoodaba ku soo dhaca marka ay maqlaan magaca magaaladani Los Angeles hase yeeshee waxaa jirta dhinacyo badan oo mugdi ah oo ay magaaladani leedahay isla markaana ku noqotay boogtii daawuska ku taalay waana mushkilad loo maaro waayay oo ah dayacnaanta in badan oo dadka magaaladani ku dhaqan waxaa jira dad badan oo darbi jiif ah oo ay hayso hoy la'aani oo habeen iyo dharaarba darmadooda dhigta darbiyada iyo dariiqyada waaweyn ee magaaladani Los Angeles halkani waa xaafadda Skid Row oo ku taala bartamaha magaalada marka aad xaafadani soo gasho waxa aad iloobaysaa in aad joogto magaaladii caanka ahayd ee filimaanta lagu jili jiray waxaana markaaba niyadaada ku soo dhacaysa in aad joogto xere qaxooti oo ku taala dunida saddexaad marka aad marayso xaafadani Skid Row waxa ay indhahaagu qabanayaan taandooyin ku teersan laamida labadiisa dhinac waxaa jira qaar kale oo aan xataa awoodin taandooyin iyo cariisho oo salka dhigtay sibirka taasi oo muujinaysa sinaan la'aanta baahsan iyo dhinacyada nolosha ee ka jirta magaaladani iyo guud ahaanba gobolkani California muddadii yareed ee aan ku sugnaa xaafadaasi waxa ay indhahaygu qabanayeen dayac darxumo iyo nadaafad darri meeshaasi ka muuqatay dadka darbijiifka ah oo isugu jira caddaan iyo madowba waxaa tiradooda lagu qiyaasaa in ka badan 66,000 oo qof waxyaabaha ugu waaweyn ee sababta u ah hoyla'aanta baahsan ee ka jirta magaaladani Los Angeles ayaa lagu sheegaa in qiimaha nolosha ee magaaladu ay tahay mid aad u sareysa taasi oo sababtay in dad badani ay awoodi waayaan kirada guryaha halka qaar kalena guryaha laga saaro marka ay iska bixin kari waayaan ijaarka guryaha ay ku jiraan mushkiladani hoyla'aanta ee ka jirta magaaladani Los Angeles ayaa maamulka magaaladani ku noqotay boog aan la dheegi karin isla markaana dadka magaaladani ku dhaqan ayaa arrintani aad uga cawda iyagoo u arka inay waxyeelayso sumcadda bilicda iyo fayadhowrka magaalada duqa magaaladani Los Angeles Eric Garcetti iyo xildhibaanada kale ee golaha deegaankuba waxa ay ku celceliyaan in ay wax ka qaban doonaan xaaladda darbijiifka hase yeeshee taasi waa mid aan weli suurtagelin dhinaca kalena waxaa jira xafiis ay dawladda hoose ee magaaladu ay u xil saartay wax ka qabashada darbijiifka iyo hoyla'aanta magaaladani Los Angeles xafiiskani oo la yiraahdo xafiiska daryeelka dadka darbijiifka ah oo marka la soo gaabiyo magaciisa la yiraahdo LAHSA oo ay madax ka tahay haweeney la yiraahdo Heidi Marston ayaa sheegtay in sanadkan ay fureen xarumo waaweyn oo dadka darbijiifka ah lagu caawiyo lagana qaybiyo cunto iyo dhar bilaasha Heidi Marston waxa kale oo ay sheegtay in sanadkan in ka badan 23,000 oo qof oo darbijiif ah ay dejiyeen guryo kira ah oo ay xafiiskooda ijaarka ka bixinayaan hase yeeshee dadka iyagu dhaliila siyaasadda maamulka magaaladani Los Angeles oo ku waajahan darbijiifka ayaa sheegay in dawladda hoose ee magaaladani ayna marnaba u hagar bixin amaba ayna daacad ka ahayn dabargoynta xaaladda darbijiifka ee magaaladani Los Angeles inkasta oo ay sunno tahay oo ayna bilaadanku marnaba ka sinin xagga nolosha oo ay meel walba joogaan laba kala sadrooni haddana magaalada Los Angeles baa laga helaa nin cariish ku jira iyo nin ku jira qasri qiimihiisu yahay 165 milyan oo dollar Cawaale Cabdilaahi telefishinka STN Hollywood Los Angeles